waatahay dhegeystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal markana waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey macluumaadyada qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho meelo ka mida iyo rasaas weli la maqlayo waxaa hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jira waryaheena sugaal macalin maxamuud oo ku sugan goobaha ay wax ka dhaceen. sugaal haddaad maqlayso xagee wax ka dhaceen sidayse wax u dhaceen? waa mahadsan tahay war cadeeye baara halkii saac habeennimo ayaa qarax weyn laga wada maqlay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya waxa uu qaraxa koobaad ka dhacay halkii la oran jiray iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir haddana fadhi u ah wasaaradda maaliyadda hooyooyinka ka sokaysa SYL iyo hooyooyinka u dhaxaysa qaraxa waxa uu ahaa qarax gaari walxaha lagu soo xiray oo waliba aad u buuxay waxa qaraxa koobaad oo sababay in ay dumaan guud ahaan goobihii ka agdhawaa laamiga sida darbiyadii maxaa la yidhaahdaa halkii la oran jiray Exfiore kasoo horjeedkii SYL ilaa Mo gobolada kaleeto SYL ka leexata aada dhanka iyo xamarweyne u leexata ay wada dulmeen guud ahaan halka dhismooyinkii ku yaalay qarax labaad ayaa 30 daqiiqo kadib waxa uu asiguna ka dhacay baar fadxi iyo halka la yiraahdo beerta nabadda dhexdooda baabuur yaalay meel cidla ayaa qarxay mar labaad qasaaraha labada gaari waxa aad u qasaaro badan qaraxa koobaad waxa goobta yaala wali oo ay ambalaasyadu hadda daabulayaan meydadka oo darbiyadii ku wada dumeen guryo badan oo dumay ayaa hadda oo holaya hadda waxa duminaya damisyada gobolka Banaadir waxaa sidoo kale daadgureynaya dadka intiiba dhaawac iyo dhimashaba ambalaasyada oo ayagu isla markii goobta soo gaari waayay xabado goobta ka socday awgeed iska horimaadyo ayaa jiray ciidamada amnigu waxay ka hortageen maleeshiyaad kale oo qaraxyo ay ku xiran yihiin oo qaarkood ilaa hadda goobta ay yaalaan ayagoo qaraxyadii ku xiran yihiin waxaa la dilay dhowr tiro oo asaas la mid oo qaraxyo ku xiran yihiin qaraxyadu markii ay dhaceen kadib oo ayaguna rabay in ay goobaha kaleeto goobta qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow inay galaan rabay ayay ciidamadu ka hortageen inay dilaan guud ahaan hadda goobaha qaraxyadu ka dhaceen amniga guud waxaa la wareegay hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya waayay sugaal aad u mahadsan runtii dadku wali waxaysan si fiican u fahmin gaariga ama gawaarida qaraxday ma gawaari socotayba ma baakin yiilayba ama meel lagu baakimay targetkooda muxuu ahaa meeshaas hadda aad tilmaamayso waa meelaan dad badan joogin maxaa la yiraahdaa sababta meeshaas maxaa lagu qeexay waradeeyo horta qaraxa koobaad waxa uu ahaa mid marka dadku ay ku baraarugeen lama ogaan karo gaarigu mid socday iyo mid maxaa la yiraahdaa marka meesha yaalay mid uu yahayba waxa uu ahaa kaliya gaariga horeeto qaaxiisa ayaa waxa oo meelihii dadkii ka agdhaway oo dhan way wada dhinteen waxaa wada dumay mukinkii lama ogaan karo kan koobaad waxa uu ahaa socod iyo istaagid intaba midda uu ku jiray laakiin kan labaad waxa uu ahaa gaari ku baakiman halka la yiraahdo bar mono ama maqaayada mono ayaa meeshaas uu yaalay ku baakinaa banaankeeda dhanka meel ka jirta barxadda u dhaxaysa beerta nabadda meesha la yiraahdo hadda dadku ay isugu yimaadaan oo aad u bulsho badan goobta baabuurkii yaalay ayaa ahaa mid baakiman oo meesha yaalay laakiin baabuurka koobaad lama ilaa hadda ma aanan helin qof iga warbixisa in uu ahaa gaari markaa socda oo nafsi halliga uu ku jiro iyo mid ahaa mid meesha lagu sii baakimay laakiin waxa uu ahaa gaari qasaaro badan dhaliyay ilaa hadda sugaal maxaa qasaara ilaa hadda maxaa indhahaaga ku aragtay oo dad dhintay ah wallahi ilaa hadda dadka ma saamixin in guryaha dumay ka horjeeda goobta qaraxa koobaad uu ka dhacay dad dhismooyinkii dumay hoostooda qabdilad badana ku jira oo qaarkood adig ilaa 8 qof daayigu way qabteen oo laamiga bartamaha yaala dhismooyinka hoostooda waxaa ku jira meydad dhaawacyaduna tiraba ma lahayn intii aan arkay ilaa 24 qof oo qaraxu oo ilaa wadada albaabka madaxtooyada uu ugu tagay
dhaawacyadu ay ugu tageen waa ambalaasyada daabulay laakiin meydadku ilaa hadda waxa aan arkay 8 qof waaye dhismooyinka dhulka yaala ee dumay hoostoodana dad badana ku jira qaarkood dadku way holcayaan oo qaraxa ayaa waxaa kiimikada ku xirneed markaas ahayd mid maxaa la yiraahdaa aan la saadaalin oo qaraxa sababihiisii ayaa dadku meydkooda isku wada bedelay muuqaaladiisa waxaa war cadeeyo xusid mudan qaraxa gaariga halka u dhaxaysa SYL iyo iskaashatada gaadiidleyda gobolka Banaadir halka wadada u leexata Bar Muno ama Hotel Muno u leexata laamiga guud ahaan wuu go'ay dhulka ayuu la go'ay qaraxa awoodiisa ama xoogiisa awgeed marka waxaa taas ka dareemi kartaa in qaraxu uu ahaa mid aad u weyn oo gelgelay guud ahaan nawaaxiga goobta uu ka dhacay qaraxu waayahay sugaal dhinaca kale maxay tahay rasaasta dhacaysa maxay ahayd markaad labadan gaari midna waa baakinaa midka kalena lama ogeyn lahaa hadda laakiin rasaastu maxay ahayd dhacaysay rasaastu ciidamadii amniga ugu horeeyay goobta qaraxu ka dhacay gaaray waxay ka hortageen maleeshiyaad qaraxyadu marka ay dhacaan doonayeen in ay galaan sida ay xaqiijiyeen ciidamada amnigu halka la yiraahdo Hotel SYL oo goobta qarax uu ka dhacay ka agdhow 2 nin oo nafti halagayaal ah waa la toogtay wax ilaa hadda dad isqarxiyo ma jiraan labadaas la toogtay waxay wateen oo ku hubeysnaayeen qoryo AK-47 ah labadoodiiba qoryihii waa lagu toogtay iska horimaadka ugu horeeyay halkaas uu ka dhacay oo qaraxyadu markii qarax koobaad uu dhacay ayay doonayeen in ay uga faa'iideystaan intii buuqa uu jiro in ay galaan goobaha dawladda ee ka agdhow goobaha qaraxyadu ka dhaceen waaya hadda xaaladdu waa sidee goobtaad ku sugan tahay jawgeedu hadda waa sidee maxaa soconayase hadda ciidamada amniga la wareegay guud ahaan goobihii qaraxyadu ka dhaceen ammaankooda dadka ayaa laga celinayaa goobaha qaraxyadu ka dhaceen meydadkiyaa la daabulayaa dhaawacyadiyaa la qaadayaa waxaa sidoo kaleeto baaritaano lagu samaynayaa gawaari goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen gaarahooda yaalay oo qaarkood meydad ay ku dhex jiraan oo la isleeyahay qaraxyo kale ama sababaan waayo hadda qaraxa labaad wuxuu ahaa gaari meel ku baakiman oo aan laga warqabin waxa qaraxay marka saa daraadeed ayaa hadda baaritaanada lagula dhaqaaqay gaadiidka guud ahaan goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen ag yaala ambalaasyada ayaa loo fasaxay si ay u qaadaan meydadka iyo dhaawacyada goobaha qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow marka hadda ammaanka waa ciidamada isku dagaamay wadooyinka oo dhan oo xiray marka waxaa la baarayaa waxaa la daadguraynayaa meedadka iyo dhaawacyada haddana xaaladdu deganaanay kusoo noqotay wax xabada iyo iskahorimaada ma jiraan waana la toogtay labadii nin ee meesha doonaysay in ay qaraxyo kala geystaan oo ay isqarxiyaan waayahay sugaal adoo mahadsan dhinaca kale weerarka meesha markaan ka hadalno gaadiidka ama gaariga la baakimay agagaarka maqaayada Muna ama beerta nabadda eriyadeeda baabuurka la baakimay isagu maxaa khasaaraha u dhaliyay waxa uu dhaliyay guud ahaan baar fadxi oo Hotel Muna ku soo dhawaa wuu dumay guud ahaan meedadka waxaan arkayay wixii eriyada kaaga dhawaa ilaa 3 qof meesha ku dhimatay oo sababay dhimashada laakiin dhismaha oo dunsan lama ogaan karo waxa ku hoos jira dadka waa baarku wuxuu ahaa baar marka qarax koobaad dadku ay uga wada carareen inta badan ilaa waxaa laga wada baxay oo ay qaraxyadu saameentooda aad ka arkaysaa ilaa halka la yiraahdo dhismihii maxaa la yiraahdaa carwada weyn ee dawladda iyo xamar weyne ayuu ilaa khasaaruhu gaarsiisan yahay qaraxyada gaadiidka ku xirnaa weynankooda ama raaxadda ay la ekaayeen oo aad arkaysaa dhismooyinkii guud ahaan ka ag dhowaa nawaaxiyadan oo dhan in ay wada dumeen marka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca lama qiyaasi karayo oo weli ilaa hadda hay-adaha hadda ku howlan baaritaanaduna kama aysan warbixin inta ay maxaa la yidhaahdaa la eg tahay dhimashada iyo dhaawacu laakiin khasaaruhu guud ahaan wadadiina waa go'day oo laamigii oo dhan waa go'ay oo dhulku gooyey
dhismooyinkii way wada dumeen. waayahay aad baad umahadsan tahay waryaheena sugaal macalin maxamuud oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan ereyada ay caawa qaraxyadu ka dhaceen oo sida waryaheena uu sheegayo inta u dhaxaysa hotelka SYL la yiraahdo iyo inta u dhaxaysa aan iraahday Exfiore inta u dhaxaysa oo gaadiid halkaas ku sugnaa uu qarax weyn ka dhacay halkaasna sida waryaheena uu sheegayo dhismaha ama dhismooyinkii ku yiile uu aad burbur xoog leh u geystay dad badan ay halkaa ku dhintay runtii kuwa kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen ilaa hadda waryaheena wuxuu noo xaqiijiyey in ku dhawaad 10 qofood ay halkaas ku dhinteen oo uu arkay meydka dadkaas halka ku dhawaad ama in ka badan 20 qofoodna dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen markii labadaas qarax oo midka kalena uu ka dhacay agaarka maqaaxida Muna ama afaafka hore ee beerta nabadda la yiraahdo isna uu khasaare kala sababo ilaa 3 qofood ay ku dhinteen tiro kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen laakiin ilaa hadda lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah inta uu la eg yahay maadaama waryaheena uu leeyahay dhismooyinka qaarkood ama gidaarada qaarkood oo soo dumay darteed lama ogaan karo cidda ku hoos jirta iyo xaaladooda sida ay tahay sida darteedna khasaaraha intaas uu ka badan karaa uuna ka yaraan karaa laakiin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in uu bogsiyo dadkii waxyeelada halkaa ka soo gaadhay kuwa dhintayna ilaahay uu jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaan rajaynaynaa dhageystayaasha radio muqdisho inaan macluumaadyada wixii soo kordha hadba aanu si toosa ugu soo gudbin doono isla markaana ay la socon doonaan hadduu aaba idmo markanse waxaan ku duwayaa farsamayaqaanka si uu noogu sii wado jadwalkii kale idaacadda دنيا قاجي دين إسلامكو waa taa dhegeystayaal weli barnaamijkan gaarka ah ayaan ku guda jirnaa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu kaga imaanayaa markan waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira afayeenka maamulka gobolka Banaadir afayeen ma maqlaysaa haddan ku maqlayaa haye sidee wax u dhaceen bal goobihii wax ka dhaceenna waad maaragtay tagteen maamulkii gobolka Banaadir bal maxaa soconaya waa mahadsantahay inkastoo aanan weli xaqaa'iqa warka aanan ku siin karin oo ay weli howlgalku uu socdo oo hadda xabada aysan dhacaynin laakiin ciidamadu weli ay habaynayaan ay kilargaraynayaan laakiin uu nin labadaas qarax ay dhaceen oo hadda wixii ku dhaawacmanaya uun istaanada la geeyey wixii dhintana la naxariisto inta dhaawacana bogsiyo marka weli goobtaan joognaa way afayeen waxaa loo sheegay in ma bixin karno way in gabdho xaaladdu hadda waa degtay oo wax hadda dhibaato iyo wax walaaysa hadda ama xabada dhacaya ama kala haba yaraatee ma jiraan ciidamada ammaanka oo geesiyaasha oo shaqada qabtay ayay kilargaraynaya kadib aanan xogta la wadaagaynaa dilaa way afayeen waxaa loo sheegay in dadka meesha ku waxyeeloobay ay ka mid yihiin gabdho goobta nadaafad ka sameynaya oo hawshaas ku gudi jira ma jireen horta maamulka gobolka Banaadir nadaafad qaybtaas in hawsheedu ka socotay oo haween Soomaaliyeed ay shaqada wadeen waan maqlay laba gabar laakiin weli in nadaafada yihiin iyo inay qolo kale yihiin intaba dee ma xaqiijino laakiin waa hooyooyin Soomaaliyeed hawl nadaafada miyaa markaan hawsha dhamayno oo heedaha ammaanku shaqada dhamaystaan waana aan si toos ah u tagna goobta ay ku fiican tahay warbixinta in la bixiyo marka aan waaye marka ilaa xaddi ma intii howlgalka la soo afmeero dilahay aad baad mahadsantahay Cabdifataax Cumar Xalan ee afayeenka maamulka gobolka Banaadir online-ka si toos ah ugu jiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho noogana waramay runtii ilaa hadda macluumaadka hayo inkastoo uu ka cudur daartay in macluumaad dhameystiran uu hayo laakiin waxaan rajaynaynaa inaan inta barnaamijkan gaarka aan ku guda jirno aan dhageystayaasha radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya aan u soo baahino macluumaadyadii ugu dambeeyay wararka la xiriira weerarada caawa ka dhacay meel ka mid ah magaalada